بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومال أحد بشا مينا أي تلواتني أفر لو ذا كوني لواتنك وحن شعلها أما أن شعلها يستي إن أن عدى يوم مسائل الدورة إلى سديد مسألة وكرلتي عيدي لك عيدي سنة كان لو ذا كوني لواتنك أما دنك هجريغا كون أفر بقولي أفرتني كوغا سايشاس أورنتو سؤاله صون نقدان dadka qaarkoodna siyaabo kala gedisan ay uga hadleen ama siyaabo kala gedisan ay u fahmeen inaan cadeeyo ayaan ugu talagalay طبعا masaayishani sanadkan kaliya ma ahay mar walba ay soo noqdaan horeyna way u dhacaan tafaasiil siyaada inaan ka bixino faahfaahin waqti dheer bay u baahan laakiin si kooban baan jeclahay insha Allah taala inaan uga hadlo marka hore intaanan gelin ka hor dhac ahaan waxaan dhihi lahaa masaayisha diinta ku saabsan sharciga ku saabsan waxa laga maarmaan ah ruuxa ka hadlayay in uu sharciyeeyo oo saleeyo oo taasiiliyo oo uu u celiyo ama nusuustii ku soo aroortay haday quraan tahay haday sunno tahay u celiyo kutubtii fiqhiga iyo culimadii fiqhiga iyo culimadii sunnadu say uga hadleen qaabkaasa masaa'isha diinta loo waajahaa noocay dooni ha noqdeen dadku marka waa laba dadna waa dad caam ah oo muslimiin ah oo masaa'ishan aan baari karin oo ka salgaari karin dadna waa dad culimo ah oo wax baari kara ogaan kara masaa'isha aqoonteedii meeshay ku taalo ka salgaari kara ninka dambe oo ka salgaari kara waxaa laga maarmaanaa inuu masaa'isha baaro oo raadiyo oo maxaa ku soo arooray culimadu say uga hadleen maxay ku kala aragti badan yihiin maxay isku waafaqsan yihiin bacda baxthi iyo baarid kadib wixii u soo baxay inuu ka diin dhigto dadkana u sheego dadka kale ee caamada ah ee masaa'isha aan ayagu baari karin oo awoodeeda lahayn ayaga waxa laga maarmaana masaa'isha diinta guud ahaanba in ay weydiiyaan cidda ay aqoontiisa iyo alla ka cabsigiisa ku kalsoon yihiin oo ahlu dhikri iyagu marka ay u arkaan fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kadibna wixii uu u sheego inay ka diin dhigtaan إنما شفاء العي السؤال مدو نبي صلى الله عليه وسلم روح أن وحقرنينين داودي سوى سؤاشة كدب نوحي لو جواب إنو قاتو مدام إساو أسن مسألة ذا كسل قاري كرينين تاوامد وحخلد دد أن قارسي سنين إني مسألة ذا الصليان إني سيدي علماء أوكال مسألة ذا أغاهلان وأي بوسكي ددك أهل العلم أوكاليتا إنتي فريستان فتاوي خلدان inay umada siiyaan waa qalad sidaas daradeed intaas horta racban u leeyahay inta kadib masaa'isha aan doonayna cadeeyo waxa weeye san hore buu sheegay masaa'il ka dhashay ciidan la kala ciiday muslimiintu ay kala ciideen horeen waa kala ciidi jireen oo taariikh ahaan way soo jirtay masalada hore in doonayna cadeeyo marka waxa weeye bisha dhalashadeeda ama tan ramadaanka ha noqoto ama tashawaal ha noqoto ama midda xajka ee dilxijja ha noqoto bisha dhalashadeedu maxaa lagu sugaa shariicada marka la yiraahdo iyo diinteena tawaabteedu waxa weeye saddex mid kamid ah ay ku sugnaataa masaladana waa mas'ala aan la yaqaan way ta koobaad ay bisha ku sugnaato waxa weeye ama dariiqa koobaad ay bisha lagu sugo waa in si toos ruuxu u arko isagu صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم aragtida bisha ku sooma aragtideedana ku afura taasi waa dariiq adiga arkay hatta kaliga hadaad aragto ood hubsato
inaad ku soonto way dariiqa labaad bishii maalinkii la filayay galabtii la filayay waa la arki waayay 30 bari baa la dhamaystirayaa 30kii bari markii la dhamaystirana waa la afurayaa waa la ciidayaa hadday shawaal tahayna oo soon soo galayna waa la soomayaa iyadana xadiista nabiga ku cadahay sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku wuxuu yiri bishii hadday idinka qarsoontood arki weydaan tirada 30 dhamaystira markaa haddii 30 la dhamaystiro ama bishii hal la arko ama yaan la arkin waa la afuri hadday bisha dhamaanaysa ay tahay shacbaanna waa la soomi bisha dhamaanaysa hadday soon tahayna waa la afuri maadaama 30 bari ee muxuu ahay bishii la xisaabiyay taana waa dariiqa labaad oo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam baa ku cad waana mas'ale la isla ogoliyay inta badan culimada dariiqa saddexaad oo ay ku sugnaato waxa weeye inay dad arkay soo sheegaan dadka arkay baa laba mid ah marka dad fara badan oo meelo kala duwan jooga oo aan is arkin oo aan heshiin karin oo wax isku waafaqi karin oo meelo kala fog kala duwan jooga inay soo sheegaan tiradooduna badan tahay midda waxa la yiraahdaa waa tawaatur baa istifaada la yiraahdaa macnaheeduna waxa weeyaan waa yaqiin mar haday dadku aad u bataan meelo kala gedisanna ay ka soo sheegaan waa xaqiiqo yaqiin ah oo aan shaki gali karin isla taa waxa ku jira qodob kale isagana dadka arkay ma badna laakiin bishii ramadaan inay dhamaatay baa waxa sheegay laba ruux oo muslimiin oo caadiliin ah ayadana jamaahiir ahli cilmi siday qabaan laba ruux oo muslimiin ah oo lagu kalsoon yahay hadday sheegaan bishii shawaal inay arkeen ayadana waa lagu afurayaa aragtidoodana waxba lagu qaybsanayaa waxa la mid ah iyadana sidoo kale bisha shawaal markay bisha waxaan shacbaan dhamaadkeeda ramadaanna dhalanayo hal ruux oo muslim ah haduu sheego ayadana cala saxiix xadiiska nabiga sidoo ku sugan culimo badanna ay qabaan ramadaan waa lagu soomayaa waa marka bisha la soomayo laakiin marka laga afurayo waxay u badan yihiin laba ruux iyo ka badan inay soo sheegaan almuhim soo sheegidda bisha hadii la soo sheego laba ruux iyo ka badan ay soo sheegaan ayadana waxa waa dariiqa saddexaad oo bishii waa lagu soobi waana lagu afuraya maxaa ku tusaya axaadiista nabiga ku cadahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xadiidkaas abu malik al-ashja'i xadiid uu warinayo wuxuu leeyahay xuseyn ibn xaathir ajadali ayaa ii waramay buu leeyahay amiirka makka ayaa khudbeeyay markaas wuxuu yiri ahida ilayna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an nansuka lirru'ya nabigu wuxuuna amro nugula ballamay inaanu ku cibaadaysano ku ciidno aragtida fa in lam narahu hadanan arkin oon arki weyna bishi wa shahida shahida adlin laba ruux oo muslimiin oo caadilana cadaalad ku sifaysan oo aan lagu ogeyn wax xumaan ah laba ruux oo muslimiin oo caadiliinana ay sheegaan inay arkeen nasakna bi shahadatihima qiraalka iyagu qireen inay arkeen ayaanu markaa ku cibaadaysanayna oo ku afurayna oo bisha ku soomayna oo ku ciidayna waa laba ruux nabiga sidana amray buu sallallahu alayhi wasallam oo nasiyay dardaarankan nasi sidoo kale waxa jira xadiidka Abdullah ibn Umar oo xadiidka Abu Daawud iyo qeyrkii baa wariyay xadiis saxiix ka hore xadiidka Abdullah ibn Umar wuxuu leeyahay tara an-nas al-hilal dadkii baa bishii raadiyay inay arkaan bay isku dayeen fa akhbartu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam anni ra'aytu fasamahu markaas nabiga waxaan u sheegay in aan ugu arkay hadaan Abdullah ibn Umar markaasuu nabigu ku soomay aragtidaan u sheegay wa amara an-nas bi siyamihi dadkana wuxuu amray inay soomaan iyadana Abu Daawud iyo qeyrkii baa wariyay xadiis saxiix marka bisha dhalashadeeda markay ramadaan dhalanaysa hal ruux aragtidii buu nabigu sallallahu alayhi wasallam kuna soomay ummadana uu ku soomiyay sallallahu alayhi wasallam bisha ramadaan markay dhamaanaysayna nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dadka ku afura laba ruux oo caadiliin oo muslimiin haday soo sheegaan ku afura buu nabigu sallallahu alayhi wasallam amarkaas ummadda siiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi
masaladaasi horta waa mas'alo oo saddexda mid ka mid ah haday sugnaato sharcan masaladu waa cadda bishii baad aragtay soddon baad dhamaystirtay inta arki weyday dad baa soo sheegay laba ruux u yar yihiin ramadaan inuu dhamaaday oo arkeen bishii shawaal intaba nusuus cadcad baa ku sugan in lagu afurayo nabigu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma aha sheekh hebel baa yiri iyo wadaad hebel baa yiri iyo ma aha waa nusuus nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam inta mid ka mid ah hadii lagu afuro marka hadii midalan 29 inta la soomo bishii la arko oo dad soo sheegaan kadibna lagu afuro kadibna habeenkii 30 ay ahayd bishii la arki waayo afurkii la afuray ciidii la ciiday khalad miyaa 30 baa midalan la dhamaystay 30kii markii lagu afuray habeenkii ka dambeeyay ee la filahay bisha in la arkaaba la arki waayay waxaan leenahay soonkeena bilowgiisii ba khaldanaa waa masaa'il aynu ka hadli doono oo aan soo wadno way طيب masalada xigta waxay tahay hadii ay soo aroortay macluumaad bishii lama arkin bishii baa la waayay meeshii la filayay ramadaan baa la filayay inay dhalato waa la waayay ramadaan habeen maalintii 29 ka 30 ku soo galeysay ayaa la raadiyay waa la waayay sidii baa lagu go'aansaday lagu cilaamiyay waa lagu soomay gadaal baa waxa ka timid macluumaad sax ah oo sheegaya bishii inay dad arkeen ama maalinimadii dambe iyadoo la soomay yahay baa warku yimid ama isla habeennimadii baa warku soo kordhay warkaasi ma la qabsanayaa mise waxaan leenahay maadaama annaga aanu xalay go'aansanay inaan soonno warkan dambe dib ka yimid muxuu yahay wax jira ma aha mise warka waa la qaadan xat habeennimaha noqoto maalinimo iyadoo la soomay xataa hadii uu warku yimaado in bishii dad arkeen waa lagu afuri arintu say tahay mas'aladaasina waa mas'alo la doonayo iyadan inaan cadeyno wareer iyo walaahu ka taagan xaqiiqaduna waxa weeye nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisii bay ka sugan tahay ayagoo go'aansaday inay soomaan oo sooman in bishii loo soo sheegay in shalay la arkay kadibna uu yiri maanta soonka aad soomantihiin jabiya maadaama bishii shalay la soo sheegay xilligu nabigu ka noqonayo waa goorma waa maalinimo dadkuna waa soomay xalaynimo bishii la arkayo macluumadoodu kadib dhacday inay soo gaadho ayaa dib ka soo gaadhay markaasuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam in la afuro xadiidkaasi waa xadiidka Rabi'i ibn Hirash wuxuu ka warinayaa rag adeeradii oo saxaabadii nabiga kamid ah sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ikhtalafa an-naas fi aakhir yawm min ramadan dadkii waxay isku khilaafeen maalinkii ugu dambeeyay bisha ramadaan bay isku khilaafeen faqadima a'rabiyan labanino reebadiya aba yimid fashahida 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam markaasay nabiga agtiisa marxaati fureen shahida billahi la ahalla al-hilala amsi 'ashiyatan nabiga agtiisa marxaati fureen oo ku dhaarteen inay bishii shalay galabnimo iyagu arkeen shalay galabnimo goorma la jooga maalintii dambe la jooga waana la soomay fa amara rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam an-naasa an yuftiru markaasuu nabigu dadka amray inay afuraan afura rasuulku sallallahu alayhi wasallam labadan inay warka soo sheegay labadan reebadiye ah tabcan socota meel bay ka yimaadeen yaani waxa weey sidaasuu nabigu dadku afuriyay sallallahu alayhi wasallam riwaayad kale waxay leedahay dad safara nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam oo yiri annaga shalay bishii aragnay kadibna nabiga dadku wuxuu amray inay afuraan riwaayad kale waxay ku dareysaa in ay berri subax ay u soo kalahaan salaada ciida berri inay u soo kalahaan maantana afuraan laana maanta ay sooman yihiin maadaama ay dib ka soo aroortay macluumaad la helay in bishii xalay la arkay maanta ay sooman yihiin nabigu wuxuu ka soo qaaday inay ciid tahay ciidna in la soomo waa xaraam bil ijmaac saas daraadeed uu nabigu maalinimadii afuriyay soonkii xalay la qaatay go'aankiisina nabigu waa ka noqday sallallahu alayhi wasallam laana macluumadii hore wax ku dhisay macluumadaas maqnayd macluumadii markii soo gaadhayna nabigu sallallahu alayhi wasallam waa qaatay dadkana wuxuu amray inay afuraan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi isla sidaas oo kale waxay ka sugan tahay khulafadii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam
muxuu ahaayey iyadana Abu Daawud iyo qeyrkii xadiidka wariyay sidoo kale waxa sugan sida Abu Wa'il Shaqiiq ibn Salama uu warinayo wuxuu leeyahay meel la yiraahdo Khaniqiin baan joognay fa ahlalna hilal shawwal yani naharan bishi shawwal baan aragnay buu maalinimo iyagoo maalinimo la joogay bishii arkeen fa minna man saama wa minna man aftar maadaama maalinimo bishii aan aragnay qaarna way iska soomaneen soonkoodii iska wateen qaarna way afureen waxay yidhi war bishii waatane maalinba ha ahaatee bishii waatane in afuriya way afureen fa ataana kitaab Umar marka yani qoraal iyo waraaq ka socoto Umar ibn Khattab oo khaliifkii muslimiinta abaa noo yimid buu oo dhahaya innal ahillata ba'daha akbaru min ba'din diluhu way kala weyn diluhu marka bishu markay dhalanayso way kala weyn xajmigoodu fa idha ra'aytumul hilala naharan bishi hadad maalinimo aragtaan qorraxdii oo dhicinba bishi aad aragtaan oo maalin ay tahay fala tuftiru ha afurina soonka ha jabinina illa an yashhada rajulani annahuma ahallahu amsi illa inay labanin ka marxaati furaan inay shalay markay qorraxdu dhacaysay arkeen mooyee oo marka haday dad yimaadaan dhahaya shalay markay qorraxdu dhacaysay annaga aragnay bisha iyaguna marka maalinta ay sooman yihiin Umar wuxuu leeyahay maalinkaas marka soonka jabiya oo labada ruux ay yimid bisha sheegay inay shalay arkeen soonkiina maanta aad soomantiin u jabiya hadiiskaasina iyo atharkaasina waa athar isaguna saxiixa عبد الرزاق في المصنف ابن أبي شيبة سيدوك المصنفك محوء هاي الدرقوطني بيهقي أي مفر بدن باورينيا وانا حديث صحيح بيهقي سيدوك محوء هاي حافظ بن حجر إمام النووي وحيليه هو سونه أثر صحيح طيب سؤال شو وحي تهي مركب ماشا وحي نفهني وركن رحيا أمدي صوم بيكو ترقش وصوم بيكو أنصت oo soon baa loo cilaamiyay kadib warkan dib ka yimid maxaad umada ugu lugoynaysaan warkaasi wuxuu khilaafsan yahay hadiyigi nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam iyo hadiyigi saxaabadiisa iyo dhaqankii salafku khilaafsan yahay maxaa yeelay bishu macluumadeedu way soo daahi kartaa dad meel ka yimid baa maalinka dambe iyadoo la sooman yahay sheegi kara habeenkii xilli dambe soo dhici kartaa waqti hore la ogaan karaa وفيرسد وقت النبي صلى الله عليه وسلم معلومات وحي إيمانيسا إن بيشي حلال أركي ما نجد دم يجوا صوما بأو إيمانيسا ويقاضنا يا نبي الصحابي صلى الله عليه وسلم سيداس درادد ما ردتكو إنه هو الرع نقدانه سيداني مدع كرتي سيدان ويدع كرتاي ما هي واحد وحياله هراي ودعوه شرعدنا أي داويسي أو ميل صارتي واحد قضب كاسنا ومسألة حكتي الصدحات أو معناه ذو يهي حلي والبا حتى آثار تقاركود waxa ku soo arooray qorraxdu xataa sii dhici karto galabnimadii la joogo haday dad yimaadaan inay shalay bishii arkeen sheegaya oo lagu kalsoonaado casarka kadib soonka waa la jabinaya sababtu waxa way maalinka la soomaya waa ciid macna ciidna lama soomi karayo sidaas way macna mas'alada afraadi waxa weeye oo aan doonayo inaan taabto kaba soo qaad soddon bari baynu dhamaynay ramadaan soddon baynu dhamaynay waa afuray ama dad baa cadeeyay inay arkeen oo aan ku afuray kadib habeenkii xigay baan bishiiba arki weynay maxaan samaynaynaa ma waxaan leenahay soonkeenii horaa khaldanaa meeshii bilowgeenii horaa khaldanaa ma waxaan leenahay dadkii aragtida soo sheegay baa ismoodsiiyey ama been sheegay mise habeenka dambe ee bisha la arki waayay la danayn maayo maadaama soddon la soomay ama ma ahee dad lagu kalsoon yahay soo sheegeen oo sheegidoodii lagu afuray habeenkii dambe bishii la arki waayay wax ka soo qaad ma yeelanaysa miyaa mise waxba laga soo qaadayaa waa mas'alada xigta waay mas'aladaas culimadeenu waa ka hadleen gaar ahaan waxa ka hadlay al-Imam Shaafi'i alayhi rahmatullah wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa umka asxaabtiisuna sidaas ay ku qaateen way mas'alada kutubtooda kaga wada hadleen oo ku bisleeyeen rahimahumullah jamiican
مسألة كتب تفقه الشافعي قدام بتكهل الكرتان وحيليهن وإمام الشافعي ولي أمك كعدين يا هدي بشير رمضان إذا قبلنا في هلال رمضان عدلا وصمنا على قوله 30 يوما فلم نرى الهلال بعد 30 فهل نفطر فيه هدي رمضان كمركو بالله بني هل روح صور شيء وركيس أين كسرني warkiisii inagoo ku soconana soddonkii bisha ramadaan aynu dhammayno soddonkii markaan dhammaynayna habeenkii ka dambeeyay bishiiba arki weyno miyaynu afuraynaa mise afuri mayno soddon markaan dhammaynay habeenkii soddonaad ayaan bishii arki weynay dheh habeenkii soddonaad ayaan bishii arki weynay ma afuraynaayo ma ciidaynaa mise ma ciidayno alimaam shaafici calayhi raxmatullah نص أمكيس وحوليه والله أفوري وحن كلا قال لهين هبين كا معونه وحوي صدق كأي نصاني أو صدق كإنتين ضميني بشي أي دمات هاي بشي إن الأركان اللي لأركي واي صدقنا الله صامي كلا قاد ملها أما الصمد يهودو هفرناتو أو ضرور يبور يوسن كوجد بنانين أما هكوجد بنان هذا كلا قاد مله إمام الشافعي أصحابتي سمرك وحيليه ومد أوليه إمام نووي أصحها عند المصنف وجماهير الأصحاب وهو نصه في الأمواه يعني وحوي أصحاب المذهب انتو ضبطا جمهور الأصحاب كانوا لي بإمامك وكعدي وحوليه هي والغو أفري حلقو أفريا وحلقو أفريا أركتدي هلك الروح وشيغي بيش اللغو صومي رمضان صدنا اللغو بوحيي habeenkii soddonku buuxsamayna la arki waayo bishii ma waxaan leenahay been buu noo sheegay soddon haday buuxsantay bisha waa la arki lahaa wuu khaldamay mise waxaan leenahay ma ahee aragti ruux muslim ah oo la qaad shariicadu ina amartay baynu wax ku salaynay soddonna waynu ku buuxinay bishii hadaynu arki weyno yeelkadeeda waynu ku afuraynaa waynu ku ciidaynaa imaam shaafici sidaas uu leeyahay madhabkiisana sidaas raajix ah أصحابتي سنة سيداسي أبديهن وأنا ميتك أوليه الإمام النووي عليه رحمة الله مذهب كشافعي وهذا هو المذهب سيدا مذهب كسيداسوي مركا مسألة دي علماء دي بهوري وجهدش حدي مركا بالله عليكم هل روحه مسلم أو لغو صومي أو كدي من الصدر مركا بحسن بيش لا أركي واي حدي للتهمي واي أو لديه واي بينبو الشاكي أما لديه واي وو خلطمي ama la dhihi way una lugooyay ka waran haday dad badan oo muslimiina arkeen ka waran haday intaas oo dal oo muslimiina arkeen ka waran haday intaas oo khalaa'iq ay soo sheegeen see loo dhihi karayaa way ismootiyeen been bay sheegeen dadka waa lugooyeen say ku iimaan kartaa hal ruuxna culimadu waxay leeyihiin oo bisha ramadaan bilowgeedii lagu soomay soddonna lagu buuxiyay soddonka lagu buuxiyay aragtidiisa iyo marqaati furkiisa waa lagu ciidayaa xataa bishiyaan la arkin sida marka la yiraahdo macnaheedu waxa weeye sida marka loo afuro ama aragti la soo sheegay ha lagu afuro ama soddon buuxo soddonkoo la buuxiyay ha lagu afuro haday dhacdo marka kadib bishii habeenkii dambe in la arki waayo maxaa la sameeynaya waxaan rabaa inaan idhaahdo shariicadu inooma dirin marba haddii qaabkii ku afura aynu nidhi aan ku afuray qaabkay ina tiri ku afura haddaan ku afuray waynu aragnay soddonkaan dhammaynay dad lagu kalsoon yahay oo tiro abaa soo sheegaynu ku afurnay intaa wixii ka dambeeya ma bil weyn baa la arki doonaa habeenka dambe ma meelaha laga arki doonaa ma la arki maayo laynooma dirin ninkii cilmigeeda hayana ha keeno nalooma dirin annaga wax way daahirka shariicaduna amartay ee xadiista nabiga ku sugan taa iyada way aragtidaynu ku afurnay ma ku kalsoonahay ha طيب صدنكي ما buuxinay oo si fiican oo luhubana ma ku soo bilownay ama aragti sax ama marxaati sax ama soddon oo shacbaan oo dhameynay ma ku soo bilownay soddonkiina ma dhameynay ha wixii ka dambeeya حتى bisha in la raadiyo xul looga ma baahna inaad buur fuushay inaad raadisay meel heblo waa laga arki waayo dalka intiis badnaa laga ma arkin iyo waxa si ay idin dirsaday ii sheega
yaa diray xagee ku taallaa yaa yidhi raadiya habeenadaas dambe bishii haddayba muxuunahay dadka ummaddii ciiday oo qaab sharciya oo shareecadu inoo dirtay lagu ciido lagu afuray yaa yidhi gadaal ka raadiyo haddaad arki weydaan soonkiinni waxba kama jiraan ciiddiinni afurkiinni waxba kama jiraan ka soo qaada yaa yidhi xagee ku taallaa nabiga may ka sugan tahay saxaabadiisii may ka sugan tahay xagee ku taallaa arrin runtii yani ummadda in lagu wareeriyo sax ma aha wax aan la hubin waxaan salaysnayn oon cilmiyeysnaynna ummadda in lagu wareeriyo ma aha culimada nusuustoodii wataa nabigana sal lla lay slam axaadiistiisii wataa marka hore in layska hubiyo weeye dadka soo sheegaya ma lagu kalsoon yahay in la xaqiijiyo haddii la xaqiijiyo oo sidaa lagu soomo lagu afuro markaa kadib bishii la arki waa iyo way yar tahay iyo weyn tahay iyo laba habeen bay u dhigantaa iyo hal habeen bay u dhigantaa adeerayaalow khayr allah idin siiyo waxaasi laysuma dirin ninkii leh waa laysu dirayoo waa laga maarmaana hadda caddaynteeda ha keeno khayr allah idin siiyo waxa laga hadlayo waa masaa'il diiniya oo ta'siil iyo sharci iyo u baahan fiqhiga iyo aqwaashii ahlulcilmiga u baahan bal culimada muslimiinta qaar ka mid ah sida alimaam albayuumi oo shaaficiyada culimadooda ka mid ahaa wuxuu sheegayaa dad lagu kalsooyo muslimiinta ayaa sanadihii yani waqtiyadii tegey qaar ka mid ah waxay markhaati fureen inay bishii arkeen iyadoo oo xisaabta falakigii ay leedahay lama arki karo ayay sheegeen inay iyagu arkeen waxbaa lagu qaybsaday waa lagu afuray waxbaa yani waxa way dadkii waa qaateen habeenkii ka dambeeyey ayaa haddana bishii la arki waayey iyadoo hawadu furan tahay oo wax daruurana ayna jirin wax muxuu ahay bus iyo boodhna ayna jirin oo hawadu furan tahay baa habeenkii dambe la arki waayey ayaguna habeenkii hore markhaati fureen inay arkeen wuxuu leeyahay habeenkii dambe haddii la arki waayey waxba lagama soo qaadin oo looma aaba yeelin labadii ruuxa muslimiinta markhaati furkoodii lagu soomay lagu afuray unbaa lagu socday iyadii baa lagu ciiday iyagii baa wax lagu qaybsaday marka wax waa tan hadda taagan oo kaleeto dadku ay isku wareerinayaan oo kale wuxuu ka hadlayo mas'aladaasi ayaduna mas'alo kale waay mas'alada shanaad ee doonayo inaan baraarujiyo waxay tahay haddii dadku waxyaalaha caadaysteen iyo meelaha shareecadu wax ku xidhay iskhilaafaan kee la qaadanaya مثلا caadada waxa kamida sida caadiga ah curfiga ah mujarrabka ah hadii bishu ay soddon ku dhamaato habeenka ka dambeeyay in bishii la arko bay caadaysteen oo waliba ay weynto korayso way arki waayeen caadadii aqoon jireen baa suuroobi weyday waa qodob dhanka kale soddon baa dhamaatay oo shariicadu tiri ku afura dad muslimiina markhaati furay oo shariicadu tiri ku afura wixii dadku aqoon jireen arki jireen caadadooda ahaa iyo soddon buuxadii oo lagu afuray ama dadkii muslimiinta markhaati furkoodii lagu afuray baa isku dhacay keen qaadanayna waay markaas oo kale la shaka waxa la qaadanayaa shariicadu meesha wax ku xidhay manaadka shariicadu wax ku xidhay waxa weeyaan aragti ku afura markhaati cad oo ku kalsoontihiin ku afura bisha soddonkeeda ku afura halkaas ay shariicadu wax ku xidhay inta wixii ka dambeeya nalooma dirin in la yiraahdo kadibna habeenka dambe fiiriyo oo bisha qiyaas oo haday markaa noqon weydo sidii aad ku afurteen ka noqda shariicadu ma dhihin shariicadu waxay noo dirtay saddexda qodob ku afura ku sooma inta wixii ka soo haray waa caadad dadku ay caadaysteen sidana aan aqoon jirnay sidana aan arki jirnay bil soddona in inta la egto la wada arko bil muxuu ahay soddon haday dhaafto iska badaa in caalamka laga wada arko waxaasan arki jirnay waxaad arki jirtay iyo nusuustu meesha wax dhigtay way kala duwan tahay aragaaga iyo waxaan u soo joogi jiray iyo waxaanu maqli jirnay meel dhigo maxaa la yiri culimadu tiri maxay shariicadu tiri maxay nusuustu tiri waxaynu ka hadlayna diin waaye caada ma aha dhaqan ma aha hidam ma aha waan soo arki jiray ma aha waxaan ka hadlayna waxa weeye waa mas'ala diiniya waa mas'alada diiniga markaan ka hadlayno walaalayaal khayr Allah idin siiyo saan ku hormariyayba waa in loo noqdo maxay shariicadu tiri marka
in la shaki geliyo muslimiin aragti ku afuray ama markhaati ku afuray ama soddon buuxiyey in la shaki geliyo laga shaki geliyo afurkoodii iyo ciidoodii calashaani habeenkii dambe bishii maanaan arkin ama habeenkii dambe way yarayd ama laba uma muuqanin warkaasi war saxsan maaha warkaasi war saxsan maaha war shariicada waafaqsanna maaha ninkii haya oo wax sharciga u hayowna qaab cilmi ah oo naqli ah oo nusuus leh oo aqwaasha ahli cilmiga leh intaad uga hadasho cilmiye mas'alada haddii kaleeto waxaan leeyahay walaalayaal dadka caamada muslimiintoona ha wareerina wadaadada aan mas'aladu u bislaanowna khayr allah idin siiyo dadka ha wareerinina oo mas'aladan talaata oo mas'ala cad oo nusuus iyo aqwaasha ahli cilmiga leh oo fardiyeen oo ka hadleen saas haday dhacdo ومسألة ثلاثة ومسألة عد ونصوص إيه أقواشي العلم قاله أي فرديين أي كهل إنساس ضي دعوة صاه ضي دعوة كل أي فافهيون من له هذا دوت إنسان ساز درادة عادات كدتكو أي عاديستين إيه هذا إسخلافان يعني وحويان وحي الشريعة أي وحكو حدي كي شريعة وحكو حدي بالقاضي إياها ساز درادة بقى محوها هاي علماء الشافعية نين كم إذا أبو بكر بن الحداد اللي يلاهدو ومسألة داسي محوها هاي مذهب كوكو خلافي أي إمام الحرمين عليه رحمة الله كهل لي مركز أو حوري رأيي جيس مركو كهل لي حوري هذا مزيف غير معدود من المذهب بوري وواحد شرا ما هبور الرأي قايسا رأي محوها هاي بشي إن الأركي أهيد دي الأركي واي أركتدي هراء إن لغون نقضوا للشكي قليو واركاس ورشرا مولي إمام الحرمين صحنا واي مذهب كوكو الشافعي وكسيدا سواي سيدان هراء بإمامك وقصوا نقليني إمام الشافعي عليه رحمة الله مسألة اللي حادن دون إن كهل الله وحي تهي إن سيداس مركان يعني وحوي أنت أنا كبيح القضب كاس وحوي دتكي سبت ذا أفري سبت ذا نعيدي ما حيكو عيدين ما حيسكو أفرين وحيكو أفرين وأيكو عيدين أركتي مستفيض متواتر مستفيض متواتر وحلي هذا ترى بدن أن حد لهين المسلمين صوشة إني أركان ميل مودة شوغان بين اسكم الراعي كران اسموتيس اسكم الراعي كران صورة قلنا ما مستحيل وهاي إلى قلبيت كأفريقيا موريتانيا يمحوها هاي مالي يمحوها هاي إلى نيجر إلى محوها هاي بريق أفريقيا ودولة كلا دونا ومد أنت لقون إسوغين إن أي شيء ويرادن بشي هبينك السبت إذا أنك أرجني ما بين ليال بين نقون كران بالإسويدي أنت أسبين ما يسكون راعي كران بالإسويدي وأنت أس ما يسكون راعي كران اسمه تسيس يحدق بي مودين ضيح يحدق بي بشي مودين ما يسكون راعي كران وهو عقلك بني آدم يعرفك منا أنصر تقله هو ومستحيل مستحيلات كشبه مستحيل ويا مستحيل بواي معقول معه شريعة أنت إن كير بي وحقوق يبسطها وضمرنا إلى سديد ودن تضبوا ودن والشعوب تودي إن بدن السوار شيئين وركود إسكاب الداية شريعة صان سوار شيئين والله والروح ومسلمة لو الروح ومسلمة أو سوار شيئين حتى ميل وذا تشوجا بي شريعة تريكو أفرق ونصوم مركا دتك إن لو ريريو لليال سحماها إن محوها هاي مسائل أباهن حقيقين إن الله يدفولنا كنت سحمة سلذا اللي حد إن دون إن هلك جه الله واحد تاعي إن واحد شراء وحلي هذا حساب فلك يمكن حساب فلكيين تاع ومنازيش قمر كا يمحو ضيحة يقرح ذا يوصي الصلاة السعودان يسوي وكالة ضمبيان يو حساب تنفلكي قال لي هذا وهذا مراكز فربنا له يلاتي محوها هاي قال التكنولوجيا فربنا يلاتي ولكن علمي هرية هدي حساب تفلكي قاعد ترى هذا لما أركي كرو
oo raggii culimadii falagu iyo maraakiistii falagu ay yidhaahdaan lama arki karo kadibna ay sugnaato la arkay dad muslimiina farqaati furaan inay arkeen ma xisaabta falagan qaadanaynaa mise aragtida muslimiintu sheegan baynu qaadanaynaa culimadeena sunnadu iyo fiqigu way ka hadleen mas'alada falaga iyo ictimaadkiisa waxay kaga hadlaan ninka isagu falag ahaan ugu qancay inay bishii dhalatay asagu ma ku soomi karaa cidda uu u sheegay warkiisa ku qancadayna ma ku soomi karaa ma bannaan tahay inuu ku soomo sharci caam oo ummadda lagu wada camimo oo lagu laazimiyo qaabka ugama hadlayaan isaga shakhsiyan ku qancay cilmigana garanaya ma ku soomi karaa mise kuma soomi karo dad uu u sheegay oo kula qancay ma ku soomi karaan ma bannaan tahay baa laga hadlayaa waajib bay ku tahay maaha طيب laakiin taas ma bahaba in cilmiga falaga la kaalmaysto ba loo kaalmaysto bishii suurtagal ba mar la arki maayo macluumaadkeeda loo kaalmaysto raadinta la raadinayo iyo fiirada la fiirinayo in loo kaalmaystana iyadana mushkilo male lagama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa aragti baa waxay ku sugnaatay qaab sharci ah dad muslimiina arkay way qireen wadaadadii falaguna waxay yidhaahdeen suurtagal ma aha ma falagan hormarinaynaa mise aragtida nebigu qaata inuu yidhi baynu hormarinaynaa waxay leeyihiin culimmada alimaamu nawowi sheekhulislaam ibnu taymiya a'immadu waxay leeyihiin nusuusta sariixa iyo ittifaaqa saxaabadu waxay tilmaamayaan in aan xisaabta falakiga loo khilaafi karin wixii nusuustu sheegtay oo ah aragti ku sooma aragti ku afura markhaatiga iyo cadaynta soo aroortay ee dadku qirayaan qaata taasaa la qaadanayaa culumta falagana looma khilaafi karo arintaasina runtii waa saabiqo khatar ah waay manaataadkii shareecadu wax ku xidhay oo arka oo fiiriya oo markhaati raadiya ahayd haddii inta laga guuro la yidhaahdo ma falag baa beeniyey culumtii falagaa beenisay hadday beenisayna aragtidani waxba kama jirto falagaa muqaddasa wadaadada falaga warkooda saxa tan tadaata ummadan dhan ee aragtayna waxba kama jiro waa mukhaalafa sariixa waay waa si cad oo loo khilaafay nusuustii loo khilaafay waay maxaa yeelay manaadka shareecadu wax ku xidhay manaad aan ahayn adiga haddaad wax ku xidho waa tagyiir waa qaanuun bedel waay shareecadu waxay wax ku xidhay arag ku soon soddon dhammee ku soon dad lagu kalsoon yahay aragtidooda ku soon shareecadu halkaas wax ku xidhay adiguna waxaa tidhi taas waxba kama jiree falaga iyo wadaadadani waxay sheegaan baan ka hormarinaynaa miyaysan ahayn marka meeshii shareecadu wax dhigtay intaad beenisood ka guurtay in aad mid kaleeto ku bedelatay miyaysan ahayn qaababka sidoodaba taqyiirka ku dhaca iyo tabdiilka sharaa'icda ku dhaca soo qaabkaasoo kuma yimaadaan waa mas'alo halisa waay mas'alada falaga ma la kaalmaysan karaa haddii bishii la waayo mas'alo kale waaye ma la cuskan karaa lama cuskan karayo laakiin bishii oo la arkay intaasoo jamaahiiroo muslimiinta ay arkeen intaasoo dowladooda ay arkeen يعني suurtagal ay ahayn inay khalad isku raacaan ama been isku raacaan oo istifaada iyo tawaatur ah oo xaaladda ay isku waafaqsan culimadu isku waafaqsan yihiin in la ictibaarinayo inaad intaad beeniso aad tiraahdo ma falaga diiday warkaasi waa saabiqo khatiir ah aad bay halis u tahay sidaas daraadeed waxaan leeyahay masaa'ishaasi waxay u baahan tahay in aad looga fiirsado waxaana masalada ku ibtilaysan in la taqdiisiyo falaga iyo xisaabtiisa wadaadda mucaasiriina ku ibtilaysan qolo falaasifa baa ku ibtilaysan qolo aqlaaniyiin ah oo aan nusuustanba waxba u ogeyn iyo meeshii shareecadu wax dhigtay baa ku ibtilaysan wayna jiri jireen aqlaaniyiin diinta aqligoodii waxay ila tahay iyo falsafada ka hormareeya hadda meehe way horeysay ani kama dooday masaladan ka hadlayaan loo fahmin falaga sidiisaba ma loo ictimaadi karaa bisha hadii la waayo waa mas'alo kale way khilaafkeeday leedahay bisha hadii la waayo falaga xisaabaadkiisa ma lagu qaybsan karaa mas'alo kale waay ma la kaalmaysan karaa bishii sidii loo heli lahaa mas'alo kale waay laakiin waxaan ka hadlay wax weeye aragti sharci oo sugnaatay in looga tago calashaan xisaabta falaga mas'alada way mas'aladan ka hadlay mas'aladaas mas'alo khatiira waa aad in looga digtoonaado way liskana jiro yani waxa iyada iyo wixii ku ibtilaysanba waa mukhalafo sariixa
ومحو أهاي خلافسا نصوصتي شريعة خلافسا واي iyo waliba ijmaaci saxaabada ridwaanullaahi calayhim qodobka kale wax weeye oo islaameeshaasa falakiyiinta laftooda waana mas'ala muhiim falakiyiinta iskuma raacaan inta badan xisaabta falakiga iyo muctayaadka falaga iyo waxyaalaha ay soo saarayaan iskuma raacaan mid baa wax sheega markas kaliya center kala beeniya mid caalim falakiya war sheega ku kala yiraahdo waxba kama jiro waa mid labaad waxaan u soo joognay marar far badan intay yiraahdaan falakiyiintu isku raacaan meel hebla bisha lagama arki karayo intaasoo khalaa'iqul muslimiina inay sugaan oo arkaan dawladuhuna qaataan oo ku soomaan iyadoo falakiyiintii leeyihiin lama arki karayo marka falagan la taqdiisinayo leeyahay xisaabtiisu waa muqaddas ma khaldanto waa ijtihaad bashariya way khaldamayaan waa ismoodsiinayaan waa ijtihaadayaan daqiiq kasto yihiin si kastay u dadaalaan marar badan waxa cadaanaysa xisaabaadkoodu inay khaldan yihiin waxa sidaas oo kale marka in marka nusuusta iyo manaataadkeeda iyo meesha wax ku xidhay looga tago arintaasi waa arin aad iyo aad iyadana saabiqa khatarteeda la waay mas'aladaas todobaadan doonay inaan ka hadlo wax weeye mas'alada ku saabsan iskhilaafka muslimiinta inay ciida iyo afurka iyo soonka iyo isku khilaafaan waa mas'alo xajmigeedii qadarkii qiyaastay lahayd laga badbadinayo waa la bumbuuninaya asalku waxa weeye muslimiintu inay isla soomaan isla afuraan isla ciidaan la midoobo mid la ahaado asal saasa fiicnay laakiin haday suroobi weydo mas'alada in dabeecadeeda la siiyo xajmigeeda aan laga badbadinin la bumbuuninin waa lagu kala aragti duwanaan karaa waa la isku khilaafi karaa soonka bilowgiisa lagu kala duwanaan karaa ciida lagu kala duwanaan karaa maalin iyo laba bari baa la kala dambeyn karaa ijtihaadaad waay sidaasayna u jirtay waqtigii saxaabada ridwaanullaahi calayhim sidaasayna ku wada socdeen xadiidkii fi saxiix muslim reer shaam iyo reer madiina kala soomay xilligii saxaabada cabdullaahi ibn cabbaas muxuu ahay xadiiskiisa uu ka hadlayo abu kurayb xadiiskiisi طيب waxaa kaloo sugan sidoo kale atarkii hadda aan soo sheegayna saxiixa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wuxuu leeyahay Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama ninka taabici weey wuxuu leeyahay waxa noo yimid qoraal uu soo qoray Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anagoo joogna meesha la khaniqiin bishii Ramadaan ayaa markaasi dhamaada marka qaar anaga naga midana way sooman yihiin qaarna waan afuran yihiin buu فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم dadka wada joogay muslimiinta ah ee saxaabadu u badan yihiin ee qaarna afuran yihiin qaarna sooman yihiin ijtihaadkoodu iskhilaafsan yahay wuxuu leeyahay qolada kale ma ceebaynin qolada kale ma eedaynin qolada kale wax kama sheegin qolada kale muxuu ahaayay ma xukumin Soomaaliyeed qolada yaani afurana ijtihaad bay ku afureen qolada soomana ijtihaadkooda ku afureen oo sidana la xoog badnaatay markaas kitaabkii Umar noo yimid qoraalkii iyo waraaqdii Umar soo diray baa noo timid oo dhahaysa biluhu way kala weeyeen ee bisha hadaad maalinimo aragtaan ha afurina ilaa ay laba ruux soo sheegaan inay shalay arkeen oo ay shalay bishii dhalatay ilaa ay aragtaan soomanaada buur marka saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo salafkii ay hal meel wada jooga ayaa aragtidoodu ku kala duwanaatay qaarna afureen qaarna soomayeen طيب maadaama sidaas oo kale ay tahay mas'alo noocaas dabiiciyan ay tahay mas'alada xajmigeeda loo daayo muslimiinta cidii isla jaan qaadi karta oo isla afuri karto isla soomi kartana khayr iyo barako way hadii ijtihaadaadku iskhilaafaan oo lagu kala aragti duwanaadana kala duwanaantaasi way soo jiri jirtay iyadana sideeda muslimiinta loo nabadgeliyo la isnabadgeliyo yaan la isku xad gudbin yaan muxuu ahay la isbaadiyeenin yani waxa ijtihaadaad soo jirjay illa xilligii saxaabada soo jireen oo sida arintu ahay maanta oo kale midna hadaad fiirisaan oo macnaha wax way sanadkan hadda aan ka hadlayo 2020 marka la fiiriyo saddex bari baa la kala soomaya maalintii sabtida ahayd wax oo bisho ay ahayd May ay 29 ka ahayd waxa soomay 7 dawladood oo Afrikaan ah dawlado marka la yiraahdo Soomaaliya ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay Mali ka mid tahay Senegal ka mid tahay Mauritania ka mid tahay Ivory Coast ka mid tahay Niger ka mid tahay ila 7 dawladood oo Afrika ah baa soomay
yaa wax dhila ayaa afuray oo ciiday sabtidii aragtiyadooda kala gedisan bay ku ciideen طيب qolo waa qolada labaadi waxa weeye waxa qolada raacsan yani dad muslimiina oo laga tira badan yahay oo wadamadaas gaalada ku nool qaar kamid ah raacay oo iyagana la ciiday oo anaga kamidnahay qolada labaad waxa weeye waa dadka maanta ciidaya oo axad ah oo caalamul islaami sidoo u badan yahay ah maanta axad ay ciidayaan sodonkiiba shalay dhameystireen maanta axadana way ciidayaan qolada saddexaad waaba muslimiintu meeshay ugu badan yihiinoo muslimiinta Hindiya iyo Bangladesh waxay ciidayaan isniinta maanta axada waa soomayeen طيب kii maanta axadda soomay haduu yiraahdo qolada isniinta yani ciidaysaay kii axadda ciiday haduu yiraahdo qolada isniinta ciidaysaay waa qaldan waa khariban kii sabtida ciiday haduu yiraahdo qolada maanta axadda ciidaysaay waa khariban ka maanta axadda ciiday haduu yiraahdo qoladii sabtida waa khariban ha qalleeyeen war sida waxuma yeelan masaladuna dabeecadeedu sida ma aha masaladu soo jiri jirtay muslimiintana qolo walba ijtihaadkooda loo deyn jiray sidoodaasayna walaalo ku ahaayeen nabad lagu wada ahaa culimadoodu saaxiibo ku ahaayeen masaa'isha labadii isla niqaashayso oo iska dhaadhicin jireen laakiin muslimiintuna culimadoodu ay ku kala raacsanaayeen aqaaliimta iyo dhulkay ku nooliyeen ay ku kala raacsanaayeen mushkilana ma abuurnayn marka mas'alada buunbuuninta ku jirta iyo ajendayaal kale iyo jahli iyo hawo la socota ayaa waxay abuuraysaa in runtii wax weeye muslimiinta wixii iskaba banaanay mushkilo waa aan la mushkilo laga abuuro yani wax weeye masaa'il noocaas oo kale jirtay oo fuqahadeena iyo madaahibtii aad u isugu khilaafsanaaye oo iyagu isku khilaafsan hadana walaalo ku ahaayeen sidaas oo kale la doonaya annagana inaan ula dhaqano wixii sidaas oo kale iyagu ay ahaayeen annaguna sidoodii baan ku soconaynaa ma khilaafayno mana khilaafi karnaba mas'alada xigta ee sideedaad ee ugu dambaysa kalimaadkan aan ugu talagalay ciidan muxuu ahaayay sanadkan iyo masaa'isha ka dhashay masalada kala doonaya waxay tahay inaan cadeeyo sida fiicani waxay u tahay dadka muslimiinta caalamka maanta ku nool saddex qaybood inaan kala qaadno qaybi waxa weeye waa qoliyaha ku hoos nool dawlado bisha raadinaya oo ku dadaalaya kadibna ilaaminaya oo ogeysiiskeeda bixinaya dadka dawladaha noocaas ku hoos nool waxa sax ah oo fiican dawladahooda ay ku hoos nool yihiin bisha raadinaya ilaaminaya inay raacaan iyaga la soomaan dawladaha islaamkooda ku ciidaan muslimiinta la raacaan aynan garan marin hay'ilay mas'aladu haday khilaafiyad tahay muslimiinta dadka u taliyana ay khilaafkii mid kamid ah rajaxaan khilaafkaas meesha waa ka baxaya waa in markaas la raaco masaa'isha khilaafiga dabeecadooda sidaa waa hadii culimadu ay masalada ku muransan yihiin laakiin sultada iyo awoodda dawladdu soo gasho oo khilaafkii mid kamid ah ay labadii ra'yi mid kamid ah qaadato ra'yigii kale nadari in la doodo oo culimadu ka wada hadlaan mooyaan laakiin amaliyan meesha waa ka baxaya waxa la qaadanaya ra'yiga marka dawladdu ay rajaxday go'aankeeda marka la qaadanaya muslimiinta marka dawladaha ku hoos nool dawladaha waxa ku qaybsadeen ama soo hormareen ama hadib dhaxeen culimada qabta qaarna waxay qabaan culimada ikhtilaaf al-madaalic oo aragtida bisha iyo wala kala adduunku waa kala fog yahay oo qolo walba aragtidooda ay leeyihiin qolana waxay leeyihiin ma aha isku aragti caalamku ha noqdo xataa qolada dambe qabta hal aragti ha lagu wada soomo waxay leeyihiin wadciga maanta muslimiintu ay ku jiraan oo dawlad iyo duwaylaad iyo inay u qaybsameen ah qolo walba halkaas ay ka duulayaan culimada xataa qabta aragtida caamka ha lagu wada soomo ha lagu afuro taas waa qodob waay qolada labaad waxa weeye oo muslimiinta kamida waa muslimiin laga tira badan yahay waxay ku hoos nool yihiin wadamo gaala ah oo aan bisha danaynaynin raadinteeda iyo gelitaankeeda iyo bixitaankeedii aan shaqo ku lahayn waa wax uu la yiraahdo dadka aqaliyaadka la yiraahdo waay maxay sameynayaan dadka noocaasi dadkaasina waxay sameynayaan haday leeyihiin hay'ado iyo maraakiis u xil saaran bisha raadinteeda iyo ka go'aan gaadhideeda ayaguna waxay raacayaan say culimadu leeyihiin
hay-aadkooda iyo muxuu ahaayey maraakistooda iyo culimadoodaasi la joogta ee meesha lagaga tira badan yahay ee dalka gaalada ku hoos nool yihiin ay raacsan yihiin diin ahaan ayagaas iyaguna ku xidhmayaan xilligii ay iclaamiyaan ama ha dib dhaceen ama ha soo hormareen ama dowladaha ka mid ah ku xidhmeen ama aragti madax bannaan iyagu ha raadiyeen iyaguna ha israacaan waxaa timid qolyahaasi ku hoos nool wadamada laga tira badan yahay muslimiinta bishana aan danaynaynin haddayna wada soconin oy kala socdaan oy kala soomaan maxaan samaynaynaa marka waxaan leenahay muslimiinta dalalka ku nool haddiiba la israaci waayey oo sidii fiicnayd la waayey cid waliba ciddii ay isleedahay culimadii ay isleedahay maraakistii ay isleedahay hay-adihii ay isleedahay dadaalkooda iyo alla ka cabsigooda iyo cilmigooda ay ku kalsoon tahay ayay dadweynuhu raacayaan markaasi waxa weeye waa muqallidka muxuu ahaayey intii ku waajibaysay waay fas'al weydii marka ciddii aad isleedahay kana dadaal roon diin ahaan ku kalsoon tahay aad isleedahay muxuu ahaayey waa kula saxsan kaasaad markaasi aad raacaysaa oo la soomaysaa oo aad la ciidaysaa waa haddii yani dadka aqaliyaadka ee wadamadaas ku nool israaci waayaan hadday israacaanna yaan la jabinin oo la khilaafino yani waxa weeye hay-aadkaasi ay ku midaysan yihiin ha la wada raaco ayib taana waa qodob kale waay annaga markaan ka hadlo kenya ahaan waxaan aada u tamaninay muddo dheerna ka shaqaynaynay in la helo hay-ad maadaama muslimiinta kenya laga tira badan yahay dal aan danaynaynin bisha aan raadinayninna aan ku hoos noolay dowlad ahaan marka la yidhaahdo hay-aadka muslimiinta matala ayaa waxaan muddo ka shaqaynaynay 20 sano ka hor waxaan ka shaqaynaynay in la helo jiho muslimiintu sameeyaan oo u xil saaran bisha raadinteeda go'aankana iyadu ka gaadho muslimiinta kalena ay raacaan arrin ku saabsan waxaan xusuustaa dhowr 10 sano ka hor Mombasaan u aadnay aniga Sheekh Maxamed Sheekh Cusmaan iyo culimaan ku jirno Mombasaan u aadnay muxuu ahaayey chief qaadiga oon kula kulannay oo aan isku daynay in muxuu ahaayey la sameeyo waa suroobi weyday hay-aadka marka muslimiinta madala ama masubke ma ha noqoto golaha sare muslimiinta ee Kenya ama qaadiga ha noqdo muxuu ahaayey jiho rasmi oo hawshan qaadata oo meel walba muslimiintu meel lala soo xidhiidho bishii la sheego cidii aragta ku soo hagaajiso ma hayno dadaalkeeda wali lagama quusanin laakiin ilaa hadda ma jirto jihada ugu roon waa chief qaadiguna marar fara badan bishii oo laga arkay wadanka gudihiisa ayuusan danaynin waa mid keentay marka in la yiraahdo hal dadaalo hal isku tashado waa mid keentay annaga inaanu isxil qaano oo bishii intaanu raadino wixii markaanu xaqiijino miisaankii shariicada saarno aan isninaano waa lagu soomi karaa aan isninaano waa lagu afuri karaa inaan markaa muslimiinta u sheegno oo cilaamino bidda keentay waa laakiin waxa aad nooga fiicnaan lahayd inaan helo hay-ad wadanku leeyahay oo hawshan qaadata oo aaliyaadkii iyo waxay u baahnay diyaarsata oo muslimiintii ay ku soo hagaajiyaan cidii aragtay oo xaqiijisa kadibna aan ka wada dambayno markaa noo cilaamisa sida wadamada dawladaha muslimiintu ay ka jiraan oo kale sidaas oo kale booska noo istaagtaan jeclaan lahayn laakiin ilaa hadda kuma guuleysanin waana mid keenaysa inaanu anagu isxil qaano intii mudaaba walina maana ka quusanay dadaalkeeda waa wadnaa ilaahay tabaaraka taala noogu kaalmeeyo warka murtidiisu waxaan leeyahay walaalayaal waxaan idin leeyahay tashwiishka faraha badan ummadda laga daayo qaska laga daayo wareerka laga daayo ajendayaashan cid aad iskhilaafsanaydeen maanta ku rog iyo dagaalkan hoose iyo yani waxa weeye laga daayo ummadan cidii wax u sheegaysay ha u sheegto wax sharci ah soonkeedii afurkeedii ciideedii aan shaki la gelinin kii sabti soomayna san soo sharaxnay aragti aan shaki ku jirin oo cad oo aan shaki la gelin karin ismoodsiisna aan la gelin kareynin been la isku raacayna aan la gelin kareynin bay sabtida dadku ku afureen annaguna aan ku afurnay laguna ciiday miisaanka shariicada marka la saarana wax shaki la gelin kara ma aha
waa taxaddaa ninka shaki gelin karaya meeshuu ka gelin karaya u baahan tahay marka laga tago muxuu ahay ismoodsiiska iyo hadalka caamada marka laga tago qaab cilmi ah in shaki loo gelin karo ummadda intaa leeg aragtideeda bay u baahan tahay waxa qariib ah nimanka falakiyiinta inay yiraahdaan waxay arkeen bishii ma ahayne xidig bay meesha ka arkeen waa war qariib ah muslimiinta inta leeg 8 dawladood 7 dawladood oo is ogeyn inay kala garan waayaan bil iyo kala garan waayaan xidig kala garan waayaan wax qariib ah hatta qaar kamida inay waxay tilmaamayaan bishu dhanka ay u foorartay ma koonfur bay u foorartay mise waxay u foorartay waqooyi bay u foorartay hatta sharxayaan ma xidig baa foorarta oo caana shubata say Soomaalidu ina caana shubayta dhahaan sidaas daraadeed yani waxa khuraafaadka noocaas oo kala umada in lagu wareeriyo sax ma aha dadkaasina waxay ku soomeen aragti iyo marxaati fur istifaada iyo tawaatur oo khilaaf u soo gali kareenin dadka maanto ahad ciidayana iyaguna ijtihaadkoodii iyo dadaalkoodii ku ciideen qolada sabt bari oo inaga dambayso isniina ciidayana iyaguna aragtidooda ijtihaadkoodii ku ciideen kullina ilaahay ciidoodii iyo soonkooda ha aqbalo tashwiishka marka iyo qaska in uun yani wax way aan idhaahdo laana waxa batay su'aalaha waxa batay dadka wareersan waxa batay dadka dagaalamaya waxa batay dadka muxuu ahaa ismoodsiisku ku dhacay dad kale ma qalaynayna yani tashwiish badan baa umada la galiyay waxaan leeyahay marka tashwiish ma jiro nin walba meeshii uu ijtihaadkiisu kula kufay iyo meeshii ijtihaadkiisu noqday waa ku saxan yahay dabeecadda masaladuna waa sidaasayna soo ahaan jirtay annagana waxba kama bedeli karno wax ka fiican hadaan uga guuri karno waa ka guureynaa insha Allah taala laakiin hadii wax ka fiican la waayo inteeda iyo sida ay tahay muslimiintu walaalaha ku ahaadeen nabad ha lagu ahaado nin walba tiisi oo qaatay ilaahay tabaaraka wa taala ha waafajiyo khayrka sidaana ha lagu wada socdo yani waxa weeyaan khilaafkan iyo doodan iyo qajacdan social media iyo dagaalkan shaarica iyo waxan socdana hal iska daayo wax nafci adduunyo mid aakhiro midna malaha mas'aladana ehelkeeda ha loo daayo ilaahay tabaaraka wa taala tawfiiqda hayna waafajiyo waxaan inta ku dari lahaa oo ku gabagabeyn lahaa masalada ugu dambaysa soonka shawaal oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam markii ramadaan soomay 6 bari oo shawaalana raaciyay sanadka soonkii isagoo sanad soomay bay u dhigan tahay laana sida nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam al-asharatu al-hasanatu bi 10 amthaliha ramadaan inaan soonnay waxay u dhigantaa 10 bilood ugu yaraan 10 bilood bay u dhigantaa sanadkii marka 2 bilood baa ka dhiman 6 bari oo shawaal markaad soonto oo iyadana 10 lagu dhufto waa 60 bari sidaas aad labadii bilood ee sanadka dhimadna ku soontay kaana ka siyaami dahri way sanadka oo dhammaad marka soontay ajirkeeda lagu siinaya marka 6 bari laazima horta bisha in lagu xijiyo soon ramadaan haduu dhamaado in lagu daba qabto laazima muhiimadu wax weeyaan bisha shawaal 6 bari oo kamid ah bisha aakhirkeeda ha noqoto ama dhexda ha noqoto ama bilowga ha noqoto maanta maadaama ay axad ahayd marka su'aalo badan baa igu iimaanayay dadkii sabtida afuray axadda ma bilaabi karaan shawaalka maadaama dad muslimiin ah waliba in badan muslimiinta kamida ay ciidayaan maanto axad ah waxa fiican soonka shawaal in dib loo dhigo oo isniinta laga bilaabo muxuu ahaayay ama hadiiba talaada laga sii bilaabana ka sii fiican maadaama isniinta bay muslimiinta qaar kamida ciidayaan marka misaladaasina iyaduna sidaas weeye ilaahay tawfiiqda ina waafajiyo jazaakumullahu khayran saayishaasan rabay xogaa inaan dul istaago cadeeyo walaahow far badan ka dhashay iyo buuq far badan labadan bari su'aalo badan ay ka yimaadeen ilaahay tabaaraka wa taala amaashiina aqbalo ciideena ciid barakaysan Allah ka dhigo muslimiintana ilaahay tabaaraka wa taala tawfiiqda Allah waafajiyo ilaahayna tabaaraka wa taala wadcigan iyo xaaladan ay muslimiintu maanta ku sugan yihiin ku ka fiican oo midnimo iyo qarannimo iyo wada jir iyo awood ilaahay tabaaraka wa taala ugu bedelo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi